dhammaan mas'uuliyiinta kala madashan isugu timi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dabcan sida raggii iga horeeyayba ay aad uga dhawaajiyeen madashan afurkan caawa aynu halkan isugu nimi wuxuu daaran yahay bal in xildhibaanada iyo ergeyga iyo mas'uuliyiinta kale ay dadkana iska bartaan odaygu waa siyaasi rugcada ah laakiin waxaan u maleynayaa intii hore iyo inta dambeba inuu yaqaano oo dhawaan xilligii dhawada doorashadana isbaratay sidiisabana waa nin dadka Soomaaliyeed aad ugu xidhan qaybaheeda kala duwan Soomaalida lana kala warqaato ayuu kulankani daaran yahay isagoo oo ayaama mala saacado kooban magacaaban inuu oday Cabdi Xaashi Cabdullaahina aqalkiisa ugu tago أنا ما أنتظر حفيز كويجيمي حلباننا uu hadda la fadhiyo waxay ku tusaysaa xawaaraha uu ku socdo malaa inuu dhawaan soo xaliyay arinta gaamurtayba laga yaaba filasho badan baa laga qabaa aad baa loo soo dhaway inta marka arinta aanan gelin iyo wada hadallada iyo wada xaajoodka Somaliland arin hadda taagan oo dhowr qofna ay wax ka yiraahdeen in muddo ana dawladdeedu ay ka hadlaysay baan rabaa inaan caawa bal laba kelmadood iyana ku daro waa arinta laascaanood oo bilihii iyo ayaamihii u dambeysay maalmo fara badan dagaal ay ka dhaceen magaalada iyo cidhifyadeedaba arin hadda laga dharagsan yahay weeye waxaan in badan isweydiinayay waan hubaa Cabdikariin waqooyiga in badan buu tagayay inkastoo annagu halkan aanu u joogno qadiyada midnimada oo aanu daba soconno anigu inkastoo hadda dhalinyarada ka baxay dad badan oo dhalinyaro waa jiraan aanu daba soconno rag iyo hablo 30kii sano u dambeeyay 20kii u dambeeyay hadiya habeen u heelanaa sidii loo heli lahaa qarannimo Soomaaliya oo kaamil oo dhameystiran uu hadda inagala joogo inooguna mudan yahay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo rag fara badan oo qaali oo garanaysaan ay waqtigoodii ku dhameysteen iyagoo arinta baadi goobaya oo kamid ahaa Jaamac Maxamed Qaalib Allah u naxariisto oo kamid ahaa Axmed Jaamac Muuse Allah u naxariisto oo ay kamid yihiin ragga hadda ay ka sii nool yihiin ninka la yiraahdo Cismaan Jaamac Kalluun iyo rag kale oo fara badan ceelaaba faahiye rag iyo fara badan oo waqooyi ka soo jeeda Allah u naxariisto Cali Khaliif Galayb rag fara badan baa waqti badan waxay geliyeen sidii ay astaan ugu noqon lahaayeen qarankani inuu qaran kaamil noqdo horta dadkaasaan daba joognaa dalaalkoodii iyo juhdigoodii boqolaal qof baa yimi aniga waxa xildhibaan kursigan aan ku fadhiyo aniga ka hor ku fadhiyi jiray nin isagoo 82 sano jira Allah u naxariistee Yusuf Dir Abdi wadara maka al-mukarrama lagu dilay 82 sano isagoo jira oo ilaa iyo kontomeeyadii ilaa maalinku dhimanayo ka shaqeynayay sidii loo heli lahaa qaran kaamil ah annagoo qadiyada u taagan oo qadiyada gooni goosadka ilaa Somaliland meel ma aha afkaarteedu ay monolithic tahay oo hal wax la wada aaminsan yahay afkaaru way kala duwan yihiin inta halkan joogta iyo in xagga joogtaaba waxay naawilayaan midnimada Soomaaliyeed annagoo afkaaraha u taagan baa haddana waxaanu ku naaloon jirnay nabadda ka jirta deegaanadii oo inta iyada ka soo jeeda maahay dadka Soomaaliyeed oo dhami haddii qurba ay ka soo noqonayaan iyo haddii xamar markii qalalaasaha iyo dagaaladu ay ka dhaceen ay noqoto maxasta meel la geeyo deegaanada waqooyiga ama Somaliland waxay ahaan jireen meelaha lagu baxsado ee nabadda ay ka jirto ama awdal ha noqoto ama waqooyi galbeed ha noqoto ama togdheer ha noqoto ama sool ha noqoto ama sanaag ha noqoto nabad baa lagu joogi jiray waxa kaliya la hayeyna nabadun bay baahay mar dhaweyd xildhibaan Maxamed Haruun baa ka dhawaajiyay wuxuu yiri qadiyada Somaliland waxay ku soo bilaabantay 60 iyo 60meeyadii 61dii markii saraakiil
ay tabasho muujisay military ku isku dayeen xilligii kacaankii la isa seegay ilaa ay gaadhay in diyaarado lagu hogaamiyo qaranka Soomaaliyeed uu lahaa xilligaana dad baa hadlayay oo lahaa war waxaasina waa khalad waxaanina waa sax xilligana dad baa la hayaa hadlaya oranaya war wixii khalad la joojiyo horta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo bogaadiyo madax iyo culimo iyo hoggaan dhaqan meel walba ay geyiga Soomaaliyeed ka joogaan iyo kuwa Soomaaliland iyo waqooyiga joogaba oo arrinta in nabad lagu soo dabaalo ka hadlay way yartahay marka xaaladuhu ay adkaadaan dadka inta wanaagga u istaagta way yarta deegaanada waqooyiga ama Soomaaliland taba waxay ku sheeganaayeen kama ay fadilneen ummadde doorka oday dhaqameedka ay aad u cuslaa ragga Allah u naxariistay oo Cabdi Waraabe kamid ahaa iyo ina Sheekh Madar iyo in kale badan oo iyaga u dhigma ayaa horta nabadan xijin jiray oo salka u dhigi jiray sida aad ogsoontihiin markii qolyaha beesha dhexe la yiraahdo ay iyagu dagaalka galeen waxa nabadooda xidhay oo ku soo baxay oo soo gurmaday beelaha dhinacyada deegaan failure-ka ka dhacay maanta in laascaanood maati lagu dul dagaalamo oo la barakiciyo ma uunaha failure siyaasiyiinta iyo elite-ka Soomaaliland ka yimi waa failure xaqi dhaqanka ka yimi waa failure ka yimi xataa intii dariska lahayd meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan bogaadino dadaalada isdaba jooga ee madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo xukuumaddu ay arrinta gelinayaan si nabad loogu soo dabaalo tamari meesha doonta bahna dhigtay odayaal la diray gurmad baa la diray aad baa lagu daraaliyay dadkaasi meesha wada degaa dad kala tegaya ma degaan bay wadaagaan dhul bay wadaagaan way wada degaan anagu waxaanu aaminsanahay in ama qofku sool ha ku noolaado ama Hargeysa ha ku noolaadee ama Sanaag ha ku noolaado ama Awdale dadka Soomaaliyeed dhamaantood in loo helo xulul waara oo ay qayb kaga noqdaan qarannimada Soomaaliyeed waxaan state building ka la yiraahdo ku dhameystirmaya marka qof walba Soomaaliyeed meeshuu doonaha joogay uu calanka Soomaaliyeed inuu hadsado ku niyadsan yahay nabadna ku dareemay arrintaas waan ku yara fogaadeen laakiin waxaanu mar kale xoojinaynaa oo garab taaganna baaqyada nabadeed la diray waxaan u maleynayaa ergeygu wada hadallada ayaa isaga loo igmaday laakiin waa oday Soomaaliyeed wixii uu geystaaba nabadda inay wax ka marka nabad la helo ba siyaasad la iska wareysan karaa arrinta waxaanu cambaaraynaynaa in cudud military iyo hub lagu raadiyo xalalka siyaasadeed wada xaajood iyo wada hadal baa daawa cid muquunin kartaana ma jirto cid caburin kartaana ma jirto dadku waxay ku khasban yihiin inay ku wada noolaadaan hab cizi iyo sharaf leh ugu dambeyntiina marka dambe inay hadsadaan calanka Soomaaliyeed oo sharaftooda iyo karaamadooda ilaaliya siyaasadda aanu ku shaqeynaa anagu waa taa markaan intaa kaga baxo waliba anigu nin baan ahay soolna ka soo jeeda Sanaagna ka soo jeeda waa arrin gaari taabanaysa waa arrin culeyskeeda leh waa arrin aanu ku rajo weynahay Ilaahay bisha Ramadaan barakadeed inuu furudeeyo oo aan boqolaal wiil oo cadcad aan ku bixin iyagoo isku dilaya halka haddayba ciidan noo soo diri karaan kuwan aanu khawaarijta kula dagaalamayna nagu soo biiriyaan oo aanu Soomaalnimada ku badbaadinayne inay isku dhamaadaan ma taa inta markaan kaga baxo arrinta Somaliland baan geliyay qaranka Soomaaliyeed wuxuu jiraa 60 sano soddon uu burbursanaa una soo kabanay qoliyaha reer Somaliland 10 kala u raaca koonfureedku 9 kama ka soo bilaabantooda iyaga 10 kala u raaca oo ay kacankiis hayeen
sideetameeyadii ilaa iyo 89 bay dagaalka ugu culus ku jireen waxa uu sii raacda tabasho siyaasadeed oo ka horeysay aad baan anigu u dhageystay raggii hore ee ogaaleyda ahaa oo Cabdi Xaashi nagala joogo waayihii ay soo mareen wanaagii ay filanayeen midnimada Soomaaliyeed juhdiga ay geliyeen dadka maanta aynu leenahay hal baadi goobo ergi hal loo diro horta waa ragii Cali Sugule lahaa يا حسين أو ظاهر لها أو حسن أو مؤمن لها أو ماركة ساي تم عدلها وحاجة أنا فقلوا علىها ورق النوعها ودت كي دولة النمر الصومالية دور وين كسوقاتي أما السوقان تهنقطه أما دولة النمر تهنقطه أما قيبها كل الدول دولة النمر دولة in political entity ama qaran uu burburo ama ay qolo tabasho qabto horta arrin inoo gaara ma aha waa arrin caama oo ka jirta caalamka ilaahay oo dhan Canada dalka la yiraahdo qayb kamida ayaa aaminsan in go'no go'do Quebec la yiraahdo Tanzania iyo maxaa la oran jiray Tanganyika iyo Zanzibar saasay ahaan jirtay waa la isku keeno markii dambe waa la isku tolay qoliyo waa kala go'een xulul shirki dastuurka shir heritage oo ka dhacay Djibouti baan ka sheegay dhowr sano ka hor wada xaajo sidoo u yimaado waxa loo baahan yahay waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland in laga helo afkaaro kala duwan oo u baratamaya inay dadka ku qanciyaan midnimada aadayna iyo qoliyaha go'nogoosadka midkala marka ay bataan dadka midnimada aaminsan ayay midnimadu soo dhawaanaysaa marka halka waxa loo baahan yahay in suuqa siyaasadeed ee waqooyiga iyadoon la caburinayn ilaa xamar ciidan uga dirimayne inay intay doodaan waxaan ku rajo weynahay doodoodaas inay ku dhamaan doonto war midnimo inoogu barisaa horta taa halkaas laga rabaa inay ka dhacdo koonfurta timi eragaygu wuxuu yiri safar baan u kala kicinayaa geeyigan Soomaaliyeed ee koonfurta u mareynaya waxaan soo weydiinayaa waxay ka aaminsan yihiin buu aad baan u soo dhaweynayaa mudan Cabdikariinow inaad soo warsato qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed iyo waxay ka qabaan dib u soo dabaalida reer Somaliland lagu soo dabaalay qarnimada Soomaaliyeed anagu saa markaan u eegno marar badan heeha baan naga gala marar badan heehaabka soo garan maysaan clear ma aha si cad nooguma muuqato afkaarahaas waxay yihiin in badanna ma aanan arag dad had iyo habeen ku hawlan oo ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeed anagu haddaan cid kala weyno lixdii oday ee hadda aan idin tirinay baan soo taxaynaaba 30 sano saa u soo taagnaa oo wax kale aan ka shaqeynay wax kale aan ka shaqeynay qoliyaha halka jooga waxa yaraan waa la shaqo tagay war haddaanu shaqo tagayno bankin moon iyo baan kuraasta ku qabsan lahayn iyo muxuu ahaa hadda malaamid kala ba hayste UN ta ku hayste baanu shaqo u doonan lahayn wasiir iyo xildhibaan maana soo doonanin haddaanu soo shaqo tagnay waxaan u soo shaqo tagnay qaranka Soomaaliyeed in la badbaadiyo ma dhamaystirmayso mana jiri karto qaranka Soomaaliyeed oo aanay qaybtoodii xaq ay u lahayn aanay ka qaadan reer Somaliland waliba xaqoodii wax loogu daray aanay qaadan ilan nimanku wax tabanaya weeye aragtida Soomaali markay kala burburtay aragtiye kala qaadatay anigu markaan reer waqooyiga ama reer Somaliland oo khaas la hadlayo waxaan u sheegaa qadiyada go'nogoosadku inay political capital kooda hoos u dhigtay waxay ahaayeen dad Soomaali ka dhex muuqda soo xukumay magac iyo maamuus ku leh ilaa beled xaawo ilaa iyo maxaa la yiraahdaa ku dhaameesha la yiraahdo iyo badamadu ilaa iyo ceelbuur ilaa iyo xamar hantidooda iyo dadkooda ay daarsanaayeen anu waxaan aaminsanahay inay ku qurux badan yihiin inay Soomaali qayb ka ahaadaan
hoggaankeeda wax ka qabtaan sharafteeda ilaaliyaan halkaa doorkooda ka qaataan laakiin si taa loo helo xisaab baa loo baahan yahay xisaab baa loo baahan yahay xisaabtaasna waxaan u malaynayaa ninka reer mudug ka khaldami mayso xisaabtii horena wuu garanaya ta loo baahan yahayna wuu garan karaa anoon hadalka ku dheeraanayn ilaahay bishaa rabadaan dadka nabad ha ku soo dabaalo geyiga soomaaliyeed oo dhan baa culaysya ka jiraan oo abaaro iyo qax iyo daad iyo colaad iyo khawaarishoona sugaysee bal inta kalena allaha soo furudeeyo dhardhaarar weyn oo maqan weeye annagu inay laba dhardhaar ahayd baanu aaminsannahay laakiin dherigu saddex buu leeyahay annagu inay laba ahayd baanu aaminsannahay mid baa maqane balse ha la isugu keeno waxaan rabaa dardaaranka iyo waayo aragnimada iyo hadalka intiisii mudnaanta lahayd inaan u daayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi oo wax badan u soo joogay wixii khaldamay iyo wixii saxayna aada iga badiyay soo dhowow gudoomiye